iyadii aan ka tegey iyadii aan wax u soo bartay waxaanan soo bartay cilmi la xiriira biyahan iyo saameynta ay leeyihiin dhulka iyo effectigiisa still biyihii way socdaan just you see still biyihii way socdaan waxaan ilaahay ka baryayaa in ilaahay dunida iga qaadin iyadoo aan xal waara loo helin waxa meesha ka jira runtii muhiim ma aha inaanu hadalno laakiin muhiimaddu waxaa waaye in ficil la helo annagu waa naqaanaa reer hiiraan beledweyne aan ku dhashay ku koray xaqiiqatan waa fahmi karnaa siyaasiyiinta reer hiiraan iyo waxa ay yihiin number one waxaan rabaa kow inaan u mahad celiyo dadka reer puntland dadka reer galmudug iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaa lagu jiraa waxaan u malaynayaa 1995 2008 baa lagu jiraa maanta do you see biibaxaweyntii cunugii dhashay cunugan 19 ka dhashay maxaa la dhihi doonaa biibaxadii kasii weyneed buu dhashay kii 2008 dhashay maxaa la dhihi biibaxadii tii hore ka yareeduu dhashay ilaahay waxaan ka baryaa in 2020 iyo waxa ka dambeeya aan la dhihin cunug dambaa biibaxa dhashay runtii aad baan u qiiraysanahay waxaan jeclaan lahaa inaan kelmado badan dhaho laakiin dareenkaan isiin karayn markii laga hadlayo dam waxaa laga yaabaa in dadku aragti badan ka qabaan ama biyo xireen wax loo yaqaano biyo xireen 4 baa ilaa 5 baa loo kala qaadaa laakiin 1 inuu noqdo hydraulic in koronto laga dhalinayo 2 inuu noqdo irrigation in beero laga sameynayo 3 annaga kan muhiimadda noo ah water diversification dhaho ee biyaha lagu kala leexiyo biyo xireenka wax yar ma aha reer hiiraan mar walba waa la canaantaa ma aha in annagu canaanta garan weynay laakiin biyo xireenka hadda Ethiopia samaysanaysa $2 billion baa ku bixaysa budgetka dawladdu waa maxay 350 million 2 billion Ethiopia 1 billion China deymiyay ma kula tahay in haddii xitaa dawladda Soomaaliyeed la keeno ay wax badan ka bixin karto laakiin annagu waxaa naga maqan haddaan siyaasiyiin nahay haddaan dhalinyaro nahay activity-gii inaan dadka tusno in biyo maalin walbana soo galaan waa cimaamadanaa wax iyaga hawshaasaan dhammaynaa bas biyihii haddii laga soo baxo waa aamusnaa annagaa marka dhibtaa isku keenay saan anigu aaminsanahay ilaan maa asaaba min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum daadkan waa amar ilaahay laakiin adduunka waxaa maqlay Indonesia 7 nin baa loo xiray earthquake dhacay dhulgariir dhacay baa 7 nin loo xiray way loo xiray ma soo sheegin saadaalinta heleen marka effectigu iska jira saameyntu iska badan tahay laakiin inagu dadaalkii ma hayno inaan dadkan u gurmano diyaar uma nihin xaqiiqda markii laga wada hadlo waxaan jeclaan lahaa waliba kaamirooyinka in maanta nagala qaado si aan dhalinyarada u turxaan bixiyo oo aan waxyaabo hoos aan gudaha u galo waxyaabaha surprise kala waxay tahay xildhibaanada ay reer hiiraan leeyihiin ee federaalka ugu jiro ma hadlaan waan ognahay annaga wax lagu qaybsado Soomaaliya 4.5 wax lagu qaybsadaa wax laga xishoonayo maaha oo wax dhab ah ee jira 4.5 wax lagu qaybsadaa xildhibaanka how much uu cararo waxa eegtaan shaqaalaha dawladda qabiil walba qabiilku ka orod badan yahay oo ka shaqaale badan yahay qabiil walba qabiil ka orod badan yahay oo ka shaqaale badan yahay haddii xildhibaankaagu uu fadhiyo oo xitaa dadka shaqada geyn la yahay ma kula tahay adigu inuu dam iyo biyo xireen iyo garoon iyo ka hadli karayo kama hadli karo marka inaan annagu ka dhiidhino dhalinyaraan nahay inaan mustaqbalkayaga sidaan ku dhamaysan in la hadlo oo la kala tago in la isku yimaado oo la kala tago in xildhibaan la dhaleeco inaan annagu ka tashano in annagu naga timaado dumuuxaadkeena ay wax bedelaan aragtideena inay wax bedesho in asaga aragtideena ay saameyso ugu dambeyn mar raba inaan hadal ku dheeraado guddigan la dardaarmaya annagu dhalinyaradii baan nahay sidoo Cabdirasaaq ka dhawaajiyay sidoo saaxiibkii Cali ka dhawaajiyay waxaan naga go'an in si dhab ah aan wax u qabano inta maqan ee qalbigoodu nadiifka yahay I'm sure 100% in dhalinyarada reer hiiraan dhammaantood u diyaar u yihiin in ummadooda wax u qabtaan marka in guddiga at least hadda waxyaabaha socda aan saameyn ku yeelano United Nations-ka hadda dhaqaale geey diyaaradaha Turkiga soo wadaan inaan ogaano hantida meesha ku baxayso tii sanadka hore baxdaan ogeyn meesha ku baxday annagu waxaan iska aruurino inaan suuqa iyaga galno oo magaalada Muqdisho galno oo aan ummadeena ma aragtay waxay xaq u lahayn u raadin hadday dawlad noqoto hadday hay'adaha samafalka noqoto annagu guddi madax banaana waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno guddigan la dhisay aan iyagu ka mid noqono in waxa aan haysano wax ugu darna mooyee ilaahay inuu guri nagama geliyo waxaa laga yaabaa in ummadda Soomaaliyeed maanta shakigu iska badan yahay in la dhaho halkii doolar ee dhiibay xaguu ku baxay annaga Hiiraan ku dhalanay
waxa kacay waa hooyooyinkan waa abtiyaashan waxa qaxay waa ayeeyadeen waa aabaheen marka inaan annagu ka dhiidhinno si dadka kalena ay noola soo gurmadaan haddii annaga ficilkeenni la waayo dadka kale markii horeba dhib ma hayn waxay ahayd ku kaalmay bay ahayd ilaan qof aanan hiiraan hooyadiis joogin ama aabihii joogin wuxuu kugu caawin kara waxaa waaye walaal ummadaanaa tabaalaysan maxaa ku caawin kartaa maxadallaahi gaaladiiaba kugu caawinaysaba haddaad dhahdo dhibtaasaa jirto maxaa ku caawin karaysaa marka dhallinyaradan guddiga ah kolley waan isgarab taagannahay haddaan dhallinyarada reer hiiraan nahay insha allah waxaan rajaynayaa in kulankan uu noqdo mid miro dhala oo si dhaba ma aragtay miro dhalo oo si dhaba waxiisa ay u muuqdaan insha allah hantida meeshaan laga aruuriya in si dhaba ay u gaarto ummadda hantida dowladdan ay bixiso oo hirshabeelle loo dhiibo gacanta saddexaad oo shacabka ah iyo dowladda inaan inagu u dhexayno maxaa la gaarsiiyey shacabkan inaan ogaano wax ma helen 2 milyan baa la aruuriyey magaalada beledweyne kuma noola min $1 ma loo gaarsiiye at least ma gaarayso am sure inaysan gaarayn qamadigii waxaa naloo keeni jiray saliid in qamadigii saliidii aan haddana la gaarsiin at least wax guryahooda u dhisi kara inay sanadkaa helaan haddii aan dhaamka la heli karin waxaan rabay fariin yar beledweyne idila hadlaysa dalkaan ahaa aasaaska dalkaan ahaa duntiyo miidaan ahaa xarunta lagu soo dagiyo madaxda doortaan ahaa difaaca dalkaan ahaa cadowga didisaan ahaa daryeesha dadkeeda iyo hooyada diran baan ahaa halyeydii hataan ahaa halyeydii hataan ahaa dayrkii dhaqankaan ahaa nabadda darmadeeda iyo